إن هرت وحوي شعورت إذا ما أنت أي كعسنتهاي أرين كان وحن كشقينا يي مدة هذا شن طبعا عشاء أمريكي قبل عسكرته يكتو قتي بودن كان نوروي مقالة مدحديس أوصل حافظ كم يدقرون لان ليرادو هالكاس شن 10 دقيقة كدي مركي قبل لقى قاضي أيام وحن كلا هذا لي ميديها ودن كان نوروي إليهين كدبنا وحن قان صدي إن أمد الصوماليات أي أباهن تهاي قف أقرشية iskuhaga isu keena codkooda ay dhiibtaan xaqoodana ay soo dhacsadaan maanta sida aad arkayso aad ayay u wanaagsan tahay in intaas oo Soomaali ah iyo in ka badan oo noo soo hambalyeynayso ay isugu yimaadaan Garoonland muddo gaaban gudaheedna aanu ku gaarnay go'aanka in aanu banaanbaxa sameeyno sida muuqata website Soomaalidu leeyihiin iyo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo anigu ka socdo ayaa jooga waxa cabasho laga muujinayaa warbaahintii dalka Norway kuwii caalamiga ah internationalka ah cid timaaday male booliisku markii demonstration ama dibadbax la sameeyo dadkii ka hor imaadaan waa la hadlaana way dejeen cid idin la hadashay ma jirto xaaladiina waa sidee wax u dhaceen والله هرت رنا هانتي ودن آد وحنو كنا لنا ديمقراطية ما دام أنو كمدنا هاي دتك نرويجيا ودك كنول أنو أصلنا كسوجينا الصومالي فرين تيدا وانو كتبني دولتنا واحد ليس إني كعجة جيرين ما دام أي جرتو الرمى بدن أو أنو سؤال بدن ويديني أنت أنا ندبت بحنا أنو ساق من قابلين وأنو لحريرني دولتنا وأنو لحريرني بوليسكا حتى واحد جيرانين كدان بوليس مستركا ودن كنوروي هايستا قبضنا يدا مركي داو عقود عاي مركو يميت إساقا أيابا حكم انتقاطي أيو حكم وكسوروغي قبضي أنت أوران لها واحد عاي غلط وهي أما سكلا وحلو حلين لها ما دام أي maanta maalin sabti tahayna siyaasiyiinta Norwegigu way naga cagajideen dhagahay naga xirteen waxa aan marka hadda eegayna ilaa talaadada hadii aanu ka helno wax akhbaar ah ama wax rogaal celin ah ciidankan Norway booliiska iyo siyaasiyiintooda in haddii aanu weyno jawaabtaas aanu jimcaha haddii ilaahay yiraahdo mudaharaadkan mid ka weyn qabanqaabino aan ka dhaqaaqi doono bartan Garoonland aan taaganahay tagina doono xafiiska lagu magacaabo Stirtingaha ee laga xukumo wadanka 15 cisho ka hore u diyaar garowday inaad qorsheyso inuu dhaco sidaad ku tala gashay wax ma u dhaceen dadka Soomaalida waa sidee ma heshay jawaabtii aragtay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay jawaabtii aan sugayay iyo mid ka badanba waan helay dadka Soomaaliyeedna waa dad damiir leh waa dad dhaqanayo waa dad isku mid ah waxayna u istaageen maanta dhiigooda daadanayo iyo hooyada Soomaaliyeed ee aan waxba geysan ee xabad aqdarada lagu dhuftay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida maanta ay uga soo jawaabeen fariintayadii oo guddigayagii odayaasha iyo guddiga dhalinyarada ee arrinka soo qaban qaabiyay farxad baan ku seexanaynaa kuna joogaynaa waxaana ballan ku qaadnay sida gabadha ay sheegtay Sacda inaanaan joojin ilaa aanu ka gaadhno wixii dhib ay nalagu hayo ilaa aan guusha ka gaadhno waa sidaan u bilownay wayna soconaysaa dadka Soomaaliyeed waa dad ku dhibaataysan dalkan in badan bay dhibaataysan tii ugu horeysay ma hore u dhacday maxaa ay noqonaysaa in hore looga socdo ma isleedahay hawshan maanta bilaabatay waa mid sii soconaysa absolutely waan aaminsanahay inay hor u soconayso dadkii baa bislaaday nin walba godkiisii baa biyo ugu galeen nin walba wuxuu ogaaday inuu sakeligii wax tarayn nin walba wuxuu ogaaday inuu gobol anfacayn ninba gobol buu ka yimid nin dhulka foodhaca ma jiro nin walba gobolkaaga waa kugu qiimeynaa laakiin halkan far baan nahay walaalanahay kalana hadhimayno walaahi dareenkaygu aad iyo aad buu xun yahay waxaan ka xumahay lambar 1 gabadha Soomaaliyeed ee xaq darrada lagu dilay wax allaale wax maanta boolisku iyo Norway intoona ay ka hadasheen jirin waxaan kaloon ka xumahay maanta intaynu banaan baxnay aan cid respectina siisay aanay jirin oo aan booliska aan respectina siin oo aanu inaga hadlin oo maxay ahayd wax allaale waxaynu nahay baaba iska yaraadeen Soomaali nahay waxaan laakiin anigu Soomaalida oranaya oo nu sheegaya markii hore carruurteena ay guranayeen oo ay bilaa sabab ku guranayeen imikana maxay ahayd hooyooyinkeena waa la xidhaayay oo bilaa sabab baa lagu xidhaayay irbada lagu mudaayay ta is dhaqdhaqaajisana anaga carruurteedii ay gurteen oo hooyooyinkeegii ay jeelasha ka buuxaan oo irbada hooyooyinkee lagu muday oo maanta nolol aanu haysanaa Norway aanay kaba jirinba ayaa maanta markaan u banaan baxnay aanu shucuurteedii rabnay inaan muujinana aanu anagii carruurteedii hooyooyinkeegii miirka qabay soo baxnayna naloo jawaabi waayo oo nala siin waayo xaq dhowr
oo respectina la siin waaye sharci Norwejiya baan haysanaa anigu kawsir roosha la yiraahdo baasaboorkooda iyo diintoodaba halkaasaan ku gubaya naaw waana siinaya waa maalin aan ogaaday inay Soomaalida Norway ay ku nool inay mid kaliya tahay oo aad dareenkooda u muujiyeen dhibaatadii weyneed halka ka dhacday aan la kala lahayn hebel iyo hebel midtoona ee leeyahay mid kaliya oo Soomaalinimo ah oo aad loo muujiyay aad baan ugu farxay maanta oo kaliya intaas sanadood waddanka joogay waa maalintii ugu horeysay ee arko Soomaali aad isugu timaada oo aad iyo aad ugu hala oo isku mid ah inay meel uga soo wada joodaan dantooda iyo wixii dhibaato ah aad maanta shucuurtaydu aad u kacsantahay aan ku halkaan iskunimada maanta shucuurtayna muujinay marka insha Allah waxaan rajeynaa insha Allah in Ilaahay noo fududeeyo waxaan jecelnahay Allah na siiyosan aan rajeynaa insha Allah xasan aad baad u mahadsantahay marka hore adigii oo bahda saxaafadda aad ka socoto dareenkayga waxaan ku muujinaynaa inaan ku xunnahay dhacdadii ay booliska Norway u geysteen gabadha Soomaaliyeed oo ay u dileen si arxan darraa u toogteen marka waxaan halkan ugu soo baxnay inaan dareenkayga muujino Soomaalinimo waxaan farayaa ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Norway inay arrimahan oo kale u soo wada baxaan oo ay dhinac ka istaagaan xasan anigu waxay la tahay magacayga xasan cali xirsi baa la yiraahdaa maanta Soomaalida halkan isugu timid inay maanta xanuunkii arkeen maalin walba carruurtoodii waa la kaxaystaa haddana dumarkii bay maraysaa in xabado loola dhaco kamaanta guriga joogana ina birtana loo imanayo isagana xabada guriga ugu imanayso marka waxaan oran lahaa Soomaalida waxaan aad ku jirtaan ka dhaxbax mid kaliya wada noqda inta maanta isugu nimidna haddaan maalin walba ilmo yar oo la qaataan isugu soo baxnana inaan ceshan karno carruurteena aanu tusno inaanu dad nahay nin walba waxaad caloosha ku haysatid ku hayso laakiin midnimada Soomaaliyeed aan isugu soo baxno aanu markaan halkan joogno waxaan ku hadlayaa ninka Norway ka joogna ka hadlaya inaan isku soo baxno aanu tusno gaalada ama Norwejiga inaan ubadkayagu haysan kareyno ilmaha yar la kaxaystana inay ilmo Soomaali reer family Soomaali loo geeyo ee iyagu haysan karayaan waxa weeye maxay maadaama maxay waddankan aan wada joogno oo dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin haddana ma fiicna maxay in dadka bani'aadamka lagu xadgudbo booliska ayaa waxay sameeyeen xadgudub aad iyo aad u qalafsan xadgudub aad iyo aad bani'aadamada u baxsan iyadoo ay doonayaan dadkii Soomaaliyeed ee Afrikaanka inay ku shootarka ku bartaan oo ay xabada ku bartaan iyadoo dhawaan loo fasaxay in ay maxay qaataan maxay hubka fudud haddana waxay ku isticmaaleen dadkii Soomaaliyeed hubkii aad u cuslaa oo ay ku dileen gabar Soomaaliyeed oo halka joogto carruur leh ayay maalin dhowto si xaq darra ay ku dileen marka aad iyo aad baan ugu xunay waxa maanta halkan keenayna waxa weeye waa xaq darrada ay Soomaalida lagu hayo ee dalka joogta taas ayaa awgeed ayaan aad iyo aad ugu ambanaa baxna dadka Soomaaliyeedna ay dhamaantood isugu wada yimaadeen marka waa inaan ficil ka muujinaa dhibaatooyinkii ay Soomaalida u geysanayaan dadka Norwejiga booliska ee hubka haysta sida awgeed baan halkan u nimi waxaan dadka Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aanu ku guubaabino mar walba ku baraarujin in xuquuqdooda ay mar walba ay u doodaan isku duubnidooda ay walaalo aad baan uga xumahay run ahaantii waxaan jeclahay qofka bini'aadanka maadaama uu yimi wadan shisheeya in xurriyadiisa si fiican u helo ma aha in cagta hoosteeda la geliyo teed labaadna Soomaalida waxaan u sheegayaa rag iyo dumarba in la isku tiirsanaado community la sameesto oo qof kasta ama ilmo laga qaato ama dhibaato sidan oo kale ay ku timaado in la istooteeyo oo la garab taagnaado ma aha in la istee qofka dhibaatada ku dhacda la yiraahdo qofkaas waa reer hebel iyo reer hebel waa in meel loo wada istaago Soomaalina inay mid wada noqotaan jecelahay maama adiga waa dadkaana ku jirta adna waa hadlaysaa waa ku salaam assalaamu calaykum adaan kula hadlayahay waxaan rabay markii ugu horeyso dad Soomaali oo tiro badan oo intaas leeg ay soo baxaan dareenkeena waa sidee maanta maxaa u aragtaa waxaan u dareemaynaa guul baan dareemaynaa in horta dawladdu way mahadsantahay hadii la ogaado inuu mudaharaadno oo waddankeenu ku noolahayno ee in leedan ku xadgudbana ma fiicna inagoo xabad ka soo cararnay intan ina ku dhacdo waanu ka xunnahayaano marka hadii leena ka khalday xuquuqdeena inuu raadsano waa hooyo Soomaaliyeed carruur yar bay haysataa waa maato xabad baanu ka soo qaxnay imikana xabad baa ku dhacday xusuusan waxaan dareemayaa anigu dagaalkii baan joogay ay dhaayilkii ana wariba u wadirar haysta maanta tiibaan dareemayaa see aragtaa markii ugu horeyso Soomaalida dadkan aad bay ugu dhibaataysanayeen waa markii ugu horeyso Soomaali tiro intaan leeg ay soo baxdo maxaad leedahay dad Soomaali ciidanka waxaan ka baryaynaa sii socoto oo la midoobo oo wax kasta gudaha aan ku haysana kor ka mid ka noqono dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway waxaan u sheegayaa dhamaantood iyagoo isku duuban oo gacmaha is haysta oo meel ka soo wada jeeda inay mudaharaadka u soo baxaan oo wax kasto dhibaato ah oo ku yimaada ay gacmaha isu qabsadaan
dhib iyo dheefba taasan kula talinaya sidii maanta dhacday oo kale oo aan laysu kala qaybqaybin calamadan la sito iyo qabiiladan socda halka markaynu joogno Soomaali baynu nahay wallahi aad iyo aad ayuu dareenkii u kacsan yahay aad baan uga xunay gabadhan laga joogtay iyadoo lagu joogtay si aan qeyril xad ahayn oo aan xaq ahayn ayaan maanta isku soo baxnay waxaanad ogaanaysaa inay Soomaalidu isku xidhan yihiin dad caadiyana inay wadanka ka yihiin ayaan maanta tusaynaa saasaan dareenkii u yahay maanta aad baan uga xumahay hooyadan Soomaaliyeed maadaama aan hooyo Soomaaliyeed baan ahay hooyo carruur haysataanahay marka aad iyo aad baan maanta shucuurtaydu u kacsan tahay waanan ka xunnahay Saynab Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa caafimaad Ilaahay inuu siiyo dawladda Norway waxaan ka codsanaynaa inay eegto kiiskeeda in lagu dhufto xabad ma yahayn hooyo Soomaaliyeed weeyaan waa hooyo ma aragtay dib ku dhacay marka dawladda Norway waxaan ka codsanaynaa in ay ma aragtay ay eegaan oo si sharci ay ninkii dilayna ay sharciga soo hortaagaan waxay arrin aad loogu farxo 500-600 qofood ilaa dad ku dhow oo Soomaali ah oo aan wadanin magacyada maamul goboleedyada oo magac Soomaaliyeed iyo qadiyad ku socda wax la siisto Ilaahay ka soo maartay waa alxamdulillah rabbil caalamiin marka intaas horta waxa waa koow number 2 waxa kale aad u qurux badnaa sida lagu yaqaan mudaharaadyada booliisku ayaga yimaada ayaga hor socda meeshii loogu tala gala geeya maanta noloma iman taa waxay muujinaysaa maadaama booliisku arrintu ku saabsanayd marka koowaad inay booliisku ka geesayeen tan labaad waxay muujinaysaa in nagala rabay inaan wax uun halayno oo ama baabuur jug wax lagu dhufto ama dhagax meel lagu tuuro buuq la kiciyo kaarka nagala gubo Soomaali way ismaqashay marka booliisku waxaan uga guuleysanay inaan ismaqalnay si sharaf iyo karaamo leh meeshii u marnay annaga wixii aan qabno dacwo ah aan gudbisanay annagoo haba yaraatee wax dhibaato ah geysan tan labaad dadku waxay aad uga calaan in miidiyadu Norwejiga aysan iman runtii aniga wax weyn uma arko waxaa joogtay meesha ugu yaraan 7 journalist oo Soomaali ah warbaahinta aan hadda ka hadlayno waa Soomaali 3-4 kale way dhinac taagan tahay uma baahnin marka in kanaal Norwegia codkeena noo gudbiyo anaga wax baahi aan u qabno haba yaraatee ma jirto dhanka waa saga filanna warbaahinta qaranka joogta tii maartay barabaadkeeda joogta wardoon iyo nuxura jooga waxa weeyaan mudaharaadka waynu aragnaa ummadda Soomaaliyeed waxa ka dhiidhido ay iyo cid kastoo soo raacdaaba ay ka hortimi wixii ka dhacay dalka iyo toogashadii gabadha lagu sameeyay runtiina wax aad looga xumaado mar waan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay oo mudaharaadka ka qayb qaadatay mar labaadna waan ku guubaabeeyaa in mar kastaba laga dhiidhiyo xumaan kasta oo dadka Soomaaliyeed ku timaada iyo meel kasta ka dhacdaba isla markaana inuu ka qayb qaadano ummadaha kale in wax la wadaagno ama ajnabiga ha noqdeen ama ha noqdeen kuwa Norwejiga dhinaceena aba waxa aan leeyahay waa marxalad runtii dareen bixinaysa idinka qolada bahda saxaafadana aad baan ugu mahadnaqayaa ayaan ku barwaaqaynaa dadka tusno inay tahay aanay xaq ahayn waxa moodaa dadka Soomaalida aad u badan yihiin maanta socodku dheer yahay dareenkaagu waa sida marka aad aragto Soomaaliyeed intaas leeg shucuurta aad bay u kacsantahay maanta sababtoo qof Soomaaliyeed oo walaalkaya in lagu dilo xaq darro ma ogolin way fiicantay dadku inay si xor ah u mudaharaadaan markay diidan yihiin wax marka maanta waxa muuqata Soomaalida haday wax isku raacaan inay soconayso hadday Soomaalidu midowdo waad aragtaa baabuurtii ayaa ka joogsatay xitaa dariiqa maraysa iska lahayd xaq u lahayd ayaa dadka tiradooda badan ka joogsatay marka hadday dareenkooda muujiyaan iyagoo isku duuban ixtiraam badan bay helayaan waxaan jeclaan lahaa marka in runtii lagu baraarugo isku duubnida waayo halkan Soomaali baynu nahay Norway waxaynu nahay nooshka Soomaaliyeed haddaynu wax ku wada qabsan weynana waynu kala daadsanaanayna haddaan wax ku wada qabsanana saasaynu xoog weynaanayna marka cududu waa muhiim cududaas oo aatan maanta socota marka ma u muuqanaysaa Soomaalida inay noqoto mid tan ku bilowdo israacda mustaqbalka soo dhow waan u malaynayaa waayo waad aragtaa shucuurta dadweynaha ka muuqata waxay u mudaharaadayaan waa hooyo Soomaaliyeed oo xabad lagu dhuftay oo ay ka muujinayaan shucuurtoodii ay leeyihiin runtii waanu ka soo horjeednaa marka waxaan u malaynayaa in aad iyo aad bulshada wax ugu tarayso waad u mahadsantahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan istooteen waan ku faraxsanahay horta dadka Soomaaliyeed ee soo baxay una soo baxay dhibaatada gabadhooda loo geystay waana ka xumahay dalka Norway ee amaan iyo nabadgelyo aan u soo doonanay in gabdhaha iyaga lagu toogto toogasho haddaan doonayno kamaanaan nimaadneen geeska Afrika waad salaamanta folk demonstrerar Hvorfor vi demonstrerer? Vi demonstrerer mot bevæpningen av politiet og mot rasisme innad i politiet. Ja.
Vi demonstrerer mot at en dame ble skutt på Grønland her. Somalisk dame? Ja. Hur känns det liksom när du ser så många folk, så många utlänningar som kommer ut idag? Hur känns det? Det er kjempebra at det kommer så mange folk i demonstrasjoner. Tack ska du ha. شعورتي هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله شعورتي هذا وكعسنتهي Soomaali oo maanta saan iskugu xirmatay oo maanta hal mid noqotay alxamdulillah laka shukrullahi rabbil alamin wa ilaahi mahadiisa waxaan rabaa maanta insha Allah bataal wixii dhaco hadii xaq ilmaan noqdo hadii gabarta oo la dilo oo xabad lagu dhuftay hadana xabsi loo ataxaaway taasi waa inaan aan shucuurteena kicina aan macnaha community sida hal mowqif aan noqono oo qabiilkii waxyaabaha aan iskaga dhaafno marka see dareemaysaa marka aragto intaas Soomaali oo dibadda soo baxday oo markii ugu horeysay dad Soomaali ay dareemaan dhibka loo geystay waxa weeye wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan waanu ku faraxsanahay waanu ka dhiidhinay waana wax aad iyo aad aan dareenkayga aad iyo aad u wanaagsan anigoo magacaygu ah Idris Axmed Xaaji meeshan waxa ka dhacay maanta inay iskugu yimaadeen dad Soomaali ah oo ka doodaya in ay maaragtay gabar Soomaaliya oo ciidamada booliska Norwegianku ay xabad ay ku dhufteen kadib markii ay ku eedeeyeen inay cunug yar ay maaragtay ay dilayso laakiin arintaas ilaa hadda booliska Norwegianka ma cadeynin waxa dhacay iyo waxa ka dhacay meesha waxaan iskugu soo baxnay inaan ogaano waxa meesha ka dhacay booliskina wixii meesha ka dhacay noomaysa sheegayaan laakiin waxa mahad ah in ummadda Soomaaliyeed ay international ay iskugu timid ayadoo mida ay u doodayso xuquuqdeeda waxaana maanta ii cadaatay ummadda Soomaaliyeed inay leedahay hoggaan laakiin ay ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dad wanaagsan bannaanbaxa ka qayb galaysaa yaa ku bannaanbaxaysaa maanta yaa ku qabanaysaa yaa u bannaanbaxaysaa gabar Soomaaliyeed baa xabad lagu dhufto Soomaa magaceeda ma garanaysaa maay Zainab baa la yiraahdaa Zainab ya umbliishu tidii balatiye dadarfa du heer u teeksan ma ka xuntahay Soomaa ha magacaagiisa magacaagiisa mana hur känns det att du är ute idag och demonstrerar? Är det grejt? Ja. Är det grejt att du kommer ut och visar din känsla? Ja. Jo. Är det sant? Ja. Är det sant? Ja. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Qaasim Cabdinuur weeye walaal maanta markii ugu horeysay oo Soomaalidu ay banaan baxaan weeye aniguna waa markii ugu horeysay oo abid ba aan ka qayb galo mudaharaad ba sida tan oo kale taa walaal dareenkaygu waxa weeye aad buu kacsan yahay in dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo yani waxa weeye meelihii ay 30 sano ka hor nabadgelyada ay soo doonteen oo dhibtii ay uga soo carareen qofkii waxa uu sheegtay 30 sano ka hor dhibkii wadankiisa uga soo cararay maanta in lagu sameeyo asagoo wadan amniye iyo ummad bulsho amniye jooga in lagu barbarto xabada dadkayga maahan wadanka in xabadana in annagana lagu barbarto maahan xabada in yani waxa weeye dad masaakiina oo waxooyooyin ah oo makas ah in yani waxa weeye la toogto yani maahan arintaas waxa weeye aad baan uga soo horjeednaa codkayga si gaaban iyo si dheerna waan ku diidanahay waan u sheegnaa shacabka reer Norway iyo ummadda Soomaaliyeedba in arintaas ay tahay wax xun waxaan u leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay isku tiirsanaato oo midnimada Soomaaliyeed ay ilaaliso yaan doonaynaa way adigu dadkii dibadbaxa ka mid tahay bal iga waran dareenkaaga maanta waa sidaad wallaahi waa arin aad loogu farxo in Soomaali inta faraleeg oo maanta u soo baxday in ay difaacdo ma garanaysaa ay nolosheeda iyo ammaankeeda waayo qofka wax ku dhaceen oo kaliya ma ishiigu waxa weeye inay aanay dib u dhicin arintani waxay tusaale u noqonaysaa dadka ku soo dhiiranaya Soomaalida inay ma garanaysaa si aan sharciga waafaqsanayn ama degdeg u ku jiro ay gacanta ugaga shaqeeyaan iyagoo aan sharciga aan u soo marin ayaa arintan waxay u tahay tusaale wanaagsan waana runtii xadiis dadka si kale u fahmayo waxaan xadiis rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu wariyay in uu lahaa oo ah haddii aad aragto munkar kaga qabo gacanta haddii aad gacanta waxba kaga qaban weydo kaga qabo carabka waxba kaga qaban weydo qalbiga ka nac marka mudaharaadku waa dagaal miskiin waa kii carabka maanta waana si fiican baa loogu guuleysay baan qaba arintan maanta la fuliyay waana mahadsan Soomaalidu soo baxday jaamac xaaji jaamac oo aan ku ogeyn inuu dalka joogay jaamac aad baan ku soo dhaweynayaa soo dhow dibadbax baa la kulantay maanta safarna waa ka timid dabcan see dareemaysaa dadkaagii Soomaaliyeed oo maanta markaa timi oo safar ka timi saan u bannaan baxay intaas soo dad joog see dareemaysaa wallaahi alxamdulillah yartara ilaa baa mahad iskale markii ugu horeysay markii aan maqlay arintan waxaan joogay magaalada Muqdisho aad baan ugu naxay hortore waxaana wax qoran waaye qofkan bini'aadanka aniga kulli dib loo geeyo Soomaalina ma jecel diyaarno maanahay laakiin waxaan dhihi lahay wixii qaladka sameeyay kulli dawladda waa inay xisaabtan la gashaa
annagana kulle waxaan leenahay ilaahay caafiyo wallaahi dareenkayga aad u kacsan yahay intaasoo Soomaali oo isku soo baxday maanta laakiin waxaan ka xumahay in macnaha uu saan u dhaco waxaan u baahnayn 30,000 ee Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Norway inay soo baxdo in organiseed fiican la sameeyo haddana waxaan rajaynaynaa mid ka weyn inaan u sameyn doono walaasheena Zainab waxaan ku leenahay caafimaad Allah ku siiyo walaasheen waa ka kici doontaa dhaawicii ku gaaray insha Allah tacaala waxaan ahay hooyadii camala waxaan dareemayaa sida adiga aad dareemaysid waxaan ahay hooyo adigoo kala maanta waxaa noo muuqda ifafaaliya SYL oo kale 43 wax badan baan kala daadsanay haadiyahan raawa dadkii ka dhargay marka aan midowno jaaliyadda Norway haddaan nahay aan iska dayno gobolaysiga iyo qabaa'ilka banaanbaxa socdo kalima baawurkaaga u jeeda jidka waxay meel la maramale adiga baawur baa wadata waqtigaagu waa sidee saas u aragta dadka Soomaaliyeed dibadda waxa sameynaya maanta marka aragtirada والله wax lagu farxo waay Soomaali saan iskugu duuban wadanka waxa deganahay 13 sanadood maanan arkin hadda igu horeyso waa yaabanahay waa wax lagu farxo waay waana baarkana galaysaa ku soo qayb galaysaa insha Allah safka dambaa gadal ka soo gala السلام عليكم maxay ahayd dareenkaygu aad buu maanta u sareeyay walow uu dhinaca kalena aan ka xumahay gabar Soomaaliyeed oo hooyo ah in ay maanta dhaawac inay ka kici inay u dhiman aan la ogeyn ay saaran tahay haddana inay intaasoo Soomaali maanta isugu timaado aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inaan xaquuqdanada annagoo aanan dagaalamin annagoo aanan erayooyin dawladda aan la deganahay ama wadanka aan deganahay aan ku ahayn xumaata aan ku ahayn annagoon dhihin inaan xaquuqdanada aan helno baan rajaynaynaa anigoo ah Caydarus Meedhana warsame waxaan istootas siinayay barnaamijkaasi maanta loo soo baxay iyadoo gabar Soomaaliyeed oo lagu dhaawacay oo booliisku ay dhaawaceen magaaladan Oslo 15 cisho ilaa 12 cisho ka hor loo soo baxay barnaamijkaasi ayaan maanta istooto siinayay waxaan istooto siinayay dadka Soomaaliyeed ee meeshan ku dhaqan waxay weeyaan tashaash waxa ku dhacay ay leeyihiin way kala furfuran yihiin iyagoo kala furfuran ayay magaranaysaa ku dhacay laakiin maanta way isku soo urureen ilaahay khayr ha siiyo waxaan ku ducaynayaa inuu ilaahay magaranaysaa khayrka ganana siiyo wadanka Norway sharkoogana la dhaafiyo aad baa loo caraysay dabcan banaanbaxyada markay dhacaan waxa la soo baxa booliisku dadka la hadla dejiya waxa imaada warbaahinta kala duwan ee dalkan oo Norwegian ku leeyihiin oo internationalka cid u soo baxday male tiradii ugu badnayd oo Soomaaliya timaadama arinta bal looga waran dareenkaagu soo waa sidee aniga waxay la tahay guul weeye mana aha in laga xanaaqo waa in markii lagu celiyo waa in mar labaad lagu celiyo waa in mar saddexaad lagu celiyo halkana waa xaqiiqa oo runa oo dhaba oo qof walba taabanaysa qof walba inaga mid ah hadii la waxyeelayo ama xabad lagu dhufto inaynu saa ugu soo wada baxno oo aynu isku dubnaano marka waxaan maleynayaa waa guul aniga laftada mudaharaadka ka qayb galan halkan u yimi waa guul waxaan aad ugu mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee halkan deganaysa isugu dubayeen waxaan leeyahay mar walba saa isugu dubnaada yaan la cadhoonin waxba yaan la jawaabin laakiin qasab bay ku noqon oo dadku waa aragtidan laga aamusay waragta ay ka aamuseen warbaahintii booliisku kolley waa wax naga xeel dheer oo iyaga ayaa interest-kooda eeganaya laakiin waa la fahmaynaa oo aadna waad fahansan tahay waa lagu celinayaa qasab bay ku iman doonaan yaan laga daalin xasan baysan ahayn qof Soomaaliyeed baa tamaantina aad ka qayb qaadato dibadbaxan aad iyo aad haddaan dhigayaa baabuurka dibadbaxana waa ka qayb qaadanayaa qof walba muwaadin oo Soomaaliyeedna waa looga baahan yahay waa sida dareenkaaga marka aad aragto jidkiina ka xiran aad iyo aad baan ugu farxay in qof xaquuqdiisa loo raadiyo maadaama aan nahay qoomiyad ku nool wadanka Norway gabadhaasna inay dowladda Norway wax u qabataan rajeynay waa mahadsantahay waxay nafta ugu horreeyay mudaharaadka ugu dambeeyay qayb galay Soomaaliya waxa ka soo wareegtay muddo dheer maanta qabanqaabada hadda socota waa urur aan rabno inaan sameeyno urur Soomaaliyeed oo kulli ay ka kooban yihiin dadkeena marka dadaal aan wadnaa ilaahay na sharaf galo Soomaalida dad maaha ilaahay na soo jeediyo inaan isku meel ka soo jeesano muhiim mar walba magacaygu waa Abwaan Sidiiq Faarax waxaan ka mid ahay aqoon-yahaniinta nin abwaana oo Soomaaliyeed dalkan jooga aqoon-yahaniinta reer Soomaaliyeed halkan jooga anigu waxaan ahay abwaanka Soomaaliyeed ee dhahmurtiyeed iyo sugaan iyo af Soomaali ku salaysan dhaqanka Soomaalida ku amaanay ee heesta caanka ee la yiraahdo nageeya ku nool ku nagaada Norway ugu sameeyay dalka Norway
iyadoo jacayl Soomaalidu ay jeceshahay Norwejiyaanka ay ugu yimaadeen marka wadamada dooranayaan la yiraahdo Norway baan iska dhiibay Norway baan tagaya Soomaalidana halka waxa keenay qax iyo qoxoonti iyo dhibaato ka dhacday dalkoodii markaan amaanayay Norway waxay ahayd markaan soo galay anigoo ku saleeyay dhahmurtiyad iyo suugaan aad u wanaagsan anigoo ka bilaabay neenjarka iyo quruxda Ilaahay siiyay naxariista ee buu naqandoo ku baxayo nimcad iyo barwaaqada naftu way u baahnayd annagu waxaan ku nidar galay naftu tay jeclaateen niyadaydu raacday nolol inaan wadaagnay neecaw qaboobay naftayda dareentoon nageeyaa ku noolo ku nagaadi Norway heesta la yiraahdo inta af Soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogto caalamka oo laga yaqaan Norway waxaan ka dhigay wax aad u wanaagsan dadka Soomaaliyeed oo jecel Norway yimi Norway way qaabishay way soo dhaweysay sharciyay siiyeen way dajiyeen markay sharciyadii siiyeen bay haddana cunaa qabteen oo ka mantajiyeen waxa weeyaan sidii ay u marti sooreen ay u soo dhaweeyeen gobonimada lahayd inay ku joogaan bay ahayd waxa jirta hooyooyin Soomaaliyeed oo jeelasha ku jira qaar dhakhaatiir ku jira qaar aamusan oo guryahooda ku xidhan waxa jira dad Soomaaliyeed oo fara badan oo cunaa hayaan ana kamida inta ay weerarada iyo dhibaatada ku hayaan waxa weeyaan booliiska Norway ama ha ahaadaan kuwa Oslo ama kuwa guud ee Norway waxaanu leenahay waa in aad dadka Soomaaliyeed ee aad sida wanaagsan u marti soorteen oo soo dhaweyseen in aad sidii wanaag ahayd sharciyada u siiseen ee gobonimada lahayd waa idin kamid dhalashadii bay qaateen in aad ixtiraamtaan